maantay kudladdu waxay isugu timid halkan si ay bal uga doodo waxna uga tiraahdo shirkii ka dhacay 25ka bishan hotelka Dikale sidaan ogtihiina kudladdu marwalba waxay u taagan tahay difaacidda dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo cadaaladda in la difaaco iyo horumarka iyo xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed inay mar walba difaacdo anagoo marka tixraacayna shirkaas waxaan marka ugu horeysa soo dhaweynaynaa garowshiyihii xukuumaddu ay ka bixisay falkii dhacay 19kii bishii February oo dad badan oo mas'uuliyiin wax ku soo gaareen dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo tababaray inay dalkan difaacdaan ay ku dhinteen marka arintaas waxaan leenahay waa talaabo loo qaaday dhanka wanaagsan waxaan rajaynaynaa in garowshiyahaasi uu si buuxda u dhameystirmo oo wixii la kala tabanayay xal waara laga gaaro qodobka labaad kudladdu waxay ka xun tahay in uu baaqday mudaharaadkii la iclaamiyay oo magaalada Muqdisho shacabkeedu u diyaar garoobay 26ka bisha annagoo u arkaynay in baajintaas mudaharaadkaas uu baaqday looga gol lahaa in culayska laga qaado xukuumadda iyo madaxweynaha muddaxileedkeeda hadda dhamaaday marka waxaan leenahay waxay ahayd in mudaharaadkaasi uu si nabadgelyo u dhaco ujeedadiisuna ahayd si nabadgelyo inuu u dhaco ayadoo dadku ay difaacanayeen masiirkooda iyo aragtidooda iyo dimuqraadiyadda ayna ka hortagayeen in diktatoriyad wadanka iyo sharci darro lagu xukumo ayna ku dalban lahaayeen doorasho xor oo xalaal ah marka mudaharaadyadaasi waxaan wali taaganahay inay yihiin sharci oo dastuurku u ogol yahay shacabku inay mudaharaadaan kudladuna insha Allah taala way garab taagaysaa shacabka Soomaaliyeed hadii ay mudaharaadayaan mustaqbalka waxayna diyaar u yihiin inay hogaamiyaan shacabka oo ay ku hogaamiyaan mudaharaad nabadgelyo ah xilligeeda hadii Ilaahay gaarsiiyo tan kaleeto waxaan rabnaa inaan la wadaagno aragtidayada shacabka Soomaaliyeed iyo caqabadaha jira ee hadda siyaasiga xalkii looga bixi lahaa sida daraadeed waxay kudladdu ku baaqaysaa in shir degdeg ah ay isugu yimaadaan saamilayda siyaasadda ee dalku si loo jaangooyo xukuumadda iyo madaxweynaha hadda muddaxileedkeedii dhamaaday muddada ay sii joogi karaan oo ayagoo loo xalaaleeyo soo joogitaankooda muddo gaaban iyo in arrimaha doorashada laga gaaro xal degdeg ah si wadanka aysan ugu dhicinin isku horimaadkan iyo khilaafkan loo soo abjaro oo xukunku ugu wareego si nabadgelyo ah marka waxaan rabnaa shir inaan ku baaqno labadaas qodobna ay noqdaan in looga hadlo xadidida xukuumadda sharci muddadeedii dhamaaday iyo madaxweynaha muddaxileedkiisii dhamaaday ay sii joogi karaan oo xukunka ku soo joogi karaan iyo in doorasho xor oo xalaal ah oo loo wada ogola oo la aqbali karo ay ku dhacdo muddo gaaban ayaduna marka labadaas arrimood waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno waana dalbanaynaa in arrintaasi si degdeg ah looga howlgalo qodobka u dambeeya waxaan rabnaa inaan ku baaqano in la ballaariyo arrimaha masiiriga marka laga hadlayo ka qaybgalkooda oo dhammaan dadka stakeholderska ama saamilayda siyaasadda ha noqdeen musharaxiin ha noqdeen bahda ururada bulshada ha noqdeen dadkii kale loo arko inay mujtamaca Soomaaliyeed muhiim ka yihiin laga qayb geliyo oo aysan noqonin in yar mar walbaba oo ay ku adagtahay inay heshiiyaan talada dalka ay u afduubnaato marka waxaan leenahay hal la ballaariyo talada dalka ka qaybgalkeeda dad wax ku soo kordhin kara dad aragti ku soo biirin kara siyaasiyiinta intooda badan ha ka qayb galaan marka intaas ay ahayd maanta inaan idin la wadaagno waxaan rajaynaynaa wixii dambe soo kordhay in idin la wadaag doono waa mahadsantihiin